السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوديال dhegeystayaal kusoo dhawaada wararkii ugu dambeeyay dagaalada ka socda waddanka Itoobiya kuwaas oo sii xoogeysanaya iskuna dalbalaya marba marka ka dambeysa madaxweynaha Itoobiya oo ku adkeysanaya in uu dagaal uu ku xaliyo oo go'aan qaatay in uu ku xaliyo military solution dhanka kale ciidamada Tigreega oo iyagana la sheegayo in ay ku hubsadayaan in Itoobiya gebi ahaanba ay dagaal ku dhufan doonaan beesha caalamka maxay ka tiri dowladda masaarida maxaa usoo baxay oo fursada warkaas oo faahfaahsan kusoo dhawaada daawadayaal aan ku horreynay dagaalada ka socda waddanka Itoobiya gaar ahaan gobolka Tigray ayaa wuxuu yeeshay weji kale oo saddexaad kadib markii ciidamada Itoobiya ee halkaa loo diray ay laba garab ay u kala jareen labada garab oo garab ka mid uu ku biiray ciidamada TPLF ee Tigreega. Dagaal ayaa ka socda gobolka Asmara kaas oo xalay ka dilaacay lama filaan ah goobo weliba aan loo malaynaynin in uu markaa iyada uu ka jiro colaadda ay ka jirto ayuu dagaal aad u xoogan u ka dhacay kadib markii uu qarax weyn uu ka dhacay saldhig ciidan oo halkaa ay ku lahaayeen militariga Itoobiya gobolka waqooyi ee Tigray ayaa wuxuu ahaa 30 sano ee ugu dambeysay ee TPLF ee maamulka waddanka Itoobiya ayaa wuxuu ahaa mid ay hubkii iyo saanadii difaaca waddanka Itoobiya ay halkaa isugu geeyeen sida lagu soo warramayo khasaare aad iyo aad u badan ayaa halkaasi ka dhacay oo nafti iyo maalba isugu jira ciidamadii Itoobiya ee loo diray in ay dagaalkaasi ay ka qayb qaataan oo laba garab u kala tagay taas oo ku keenay maraakib aad iyo aad u weyn kalista Addis Ababa ee Abiy Ahmed. dhanka kale ciidamada Tigreega ayaa waxay sheeganayaan guulo aad u waaweyn kuwaas oo ay sheegayaan in ay Itoobiya gebi ahaanba ay kala diri doonaan gobolka Asmarana intiisa badan in iyagu gacanta ay ku hayaan waa sida ay hadalka u dhigeen. dhanka kale beesha caalamka ayaa walaac weyn ka muujinaya dagaalka halkaasi ka socda taasoo ay ku tilmaameen in dowladda Itoobiya gebi ahaanba oo waddanka Afrika ugu populationka badan lagu tiriyo ayaa waxaa la sheegayaa inuu asagana uu afka dhulka u darsan doono taas oo in ay dowladda Itoobiya xukuumadda dhexe ee Itoobiya halkaas inay ka baxdo aad iyo aad loo saadaalinayo. dhanka kaleeto warar sheegaya dowladda masaarida oo iyagana fursad kaanisoo aad iyo aad u fara badan halkaasi oo laga qabtay taliyaha ciidanka iyo sirdoonka ee masaarida oo bixiyay waddanka Suudaan maxay ka wada hadleen taliyaha ciidanka ee xukuumadda hadda la wareegay dowladda Suudaan Abdulfataax Siisi oo halkaasi fursad aad iyo aad u weyn oo uu ku tilmaamay inuu midii uu sugayay ay ahayd Abiy Ahmed oo arrintaasi walaac weyn ay ku dhalisay. maxay beesha caalamka ka dhaheen arrintaasi beesha caalamka sida ay sheegayaan qabiil xeeldheere oo carbeed oo ka faallooday dagaalka Itoobiya ayaa wuxuu ku nacniyey in ay gebi ahaanba dowladda Itoobiya in ay meesha ay kasii baxayso kadib markii ciidanka Tigray ee TPLF ay sheegeen inaysan habeyn doonaan waddankana ay kusii sidahayaan magaalada Addis Ababa ay kusii socdaan. dhanka kaleeto xagga dagaal kaleeto in ka furmo laga yaaban yahay dhinaca masaarida oo iyadana iyo habeenka beegsanaya wasiirka arrimaha kheyraadka iyo biyaha ee dalka Suudaan oo sheegay inay halkaa ay ku wada hadleen taliyaha ciidanka iyo sirdoonka ee masaarida oo tallaabo inay qaado laga yaaban yahay. maxaa xigi doona dhegeystayaal warka ku xiga ayaan idinku soo tagin doonaa insha Allah haddii rabbi aad iyo aad baan u salaamayaa. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.